بسم الله الرحمن الرحيم. وزير كحجينك وزارة arrimaha dibadda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta komishaneerka guddiga maamul wanaagga agaasima waaxidada wasaaradda warfaafinta ciidanka iyo saraakiisha waxaan ku raday wasaaradda gaarka ula shaqeeya halkan fadhiya dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda mudanayaal iyo marweyn waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahad leh isugu keenay halkan mar labaadka waxaan doonayaa inaan mahad ballaaran iyo bogaadin u jeediyo intii ka soo shaqaysay barnaamijkan aadka u qiimaha leh. waxaan mar labaadka mahad ballaaran u jeedinayaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo noo ogolaaday hoolka oo ay shaqo ka socoto inaan barnaamijkii u horreeyey ku qabanno. aad baa u mahadsan tihiin. caawa farxad weyn bay ii tahay in shaqaale weynihii wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan madaxdeedii halkan barnaamij ku wada qaataan. madaxdii qaranka in kaloo matelaysaana waxa weeye wasaaradaha iyo hay'adihii kalena nala joogaan. marti sharaftaa dhammaan aan soo marti qaadnay inaan halkan ku wada qaadano aad baan ugu faraxsannahay. waxaan doonayaa waqti badan baa la fadhiyey in hadalladii iyo kelmadihii qiimaha lahaa ee halkan laga yidhi aan idhaahdo waxa weeye waan la qabaa in arrinta wasaaradda laga hadlo qiimaha fanka iyo waxa weeye barnaamijka halkan lagu soo bandhigay laga hadlo in ugu dambeyn wasiir naasir uu halkan ka hadlo waxa weeye qadiyadda ku soo biirtay qaranka jamhuuriyadda somalilan qayb ka mid ah gobolkii sool magaalada laascaanood. waxaan ku koobayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan markastoo qaran uu dhismayo cadowna uu yeelan karayaa cid garab u ana uu yeelanayaa. waxause qaranka jamhuuriyadda somalilan heegan u yahay xilli uu ka tamar yaraa xilligan caqabado waaweyn iyo dhibaatooyin soo hor joogsaday wuu ka baxay. tanna isagoo isu idil buu maanta ka bixi doonaa oo gacmaha is haysta. bulshadayada waxa weeye reer laascaanood insha allah maalin dhow inta gobollada kale nabadda iyo degenaanshaha ay ku nool yihiin bay kula naaloon doonaan insha allah haddii alla yidhaahdo. intaa markaan ka imaado waxaan doonayaa inaan idhaahdo hambalyo shaqaalaha halkan la abaal marinayo caawa iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda oo aan ku ogahay karti iyo hufnaan iyo shaqo fara badan sidaa madaxdii iga horreysaba ay sheegeen. ujeeddada qiimayntu waxa weeye waa in qofka shaqadii loo diray ee la yidhi waxa weeye hawsha noocaasiya qabo lagu qiimeeyo halka uu ka taagan yahay loo sheego qorshaha cusubna lagu jeexo. ujeeddada qiimayntu waa taas. sidoo kale inta la abaal marinayo marka halkan la keeno inta kalena maxaa loogu yeedhaa waxaa jirta kelmad la idhaahdo vicarious motivation. waa dhiirigelin. abaalmarinta halkan laga bixin doonaa lama hadlayso ama kuma socoto keliya inta qaadanaysa inta kale ee shaqaale ah ee la shaqeeya iyagana la hadlaysa. waayo waxaynu maanta qarankeennu gaadhay inaynu caddayn karno waxqabadka laga rabo qofka shaqaalaha ay waa maxay dabadeedna la caddeeyo waa inuu waxaa sameeyaa. tusaale ahaan waa inuu subaxa xilligaa soo galaa, waa inuu shaqada saacadaha ku jiraa, waa inuu hawsha noocaasii qabtaa, waa inuu taa qabtaa, waa inuu taa qabtaa, waa inuu taa qabtaa. dabadeedna in baa jirta loo garan doono lo odhan doono waxyaabihii calaamadihii laga rabay shaqaale wanaagsan intaasaa buuxisay sanadkan oo lagu qiyaasi karaa. dabadeedna qofka halkan la soo joojiyey wuxuu astaan u yahay noocii habdhaqanahee aynu rabnay. inta kale ee wanaagsaneen ogahayna waxaan u baahannahay in iyaguna la qaataan dhiirigelintaasi oo ay insha allah haddii aan la idhaahdo
sanadada soo socda iyaguna way qaadan doonaan qof kasta oo halkan lagu abaalmariyay ku aan lagu abaalmarinba qaranka indhihiisu way idin hayaan waana lagu arkayaa waanu ku ogyahay qof kasta oo wasaaradda warfaafinta ka tirsani in uu saacadaha ugu badan qaranka geliyo hawsha u badan iyo tamarta u badanna ay ka gasho waxaan doonayaa inaan ku soo ururiyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waaxyaheega oo dhammaystiran maanta waxay si dhammaystiran u qabanayaan shaqadii qaranku uga baahnaa waa warfaafin oo aynu u baahannahay inaan qaranka war saxana siino kuna hagno inta kale waxay warbaahinta qaranku u tahay astaan iyo tilmaan u tahay miidiyaha kale siduu u dhaqmaya warbaahinta kale siday u dhaqmaysaa sida la sheegay waxa weeye waxa uu u baahan yahay qof kasta oo wariyihii qarankiisu qayb uu ka yahay waajibaad buu ku leeyahay inuu ag istaago oo uu ka ag shaqeeyaana waa lagama maarmaan qadiyadaha qaarkoodna ay noqdaan kuwa meel looga soo wada jeedo oo aan lahayn mid qaranka u shaqeeya iyo mid barayfad u shaqeeya waxaan doonayaa mar labaad inaan iyana isna aan mahad gaara u soo jeediyo waaxda dhaqanka cidda sida gaarkaa noola soo toosisay ee noola noolaysay aan qiro agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dabcan waxa weeye waa agaasimo muddana soo shaqeeyey abwaanna ah in badan way og tahay intaan ogeyna caawaan u sheegaynaa de waxa weeye dhaqan wixii uu garanayna waa ka caawa ay ka muuqataa halkani isna mahad gaara baan u jeedinayaa waxay noo ballana inaynu inagoo isu duuban qaranka u wada shaqayno halka sanadka abaalmarintu ay 40ka aynu maxaan ku dhahay abaalmarinaynana kolley dalabkaasi mas-uuliyiin kaleba codkeennii way ku hadleen waxaan filayaa in hay'adda shaqaaluhuna dib inoola eegi doonto insha allah inta caawa aynu bixinayno in ka badan oo ka qiimo badan oo waqtiyo ka wanaagsana insha allah inuu sanadkiisa isugu nimaadna haddii alla yidhaahdo waxaan ugu dambayn leeyahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu dhammaantiin maamul ilaa waxa weeye shaqaale hooseed halka u hooseysa waad mahadsantihiin qof aan is idhaahdo shaqadiisa wuu ku dhaliilan yahay ugu sarrayn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waa wasiirka u gacan baneeyey qof kasta oo shaqadaa haya inuu shaqadiisa qabto waa wasiir aan inagu 6 bilood oo keliya isnaqaanay maanta laakiin aan nahay saaxiibada isugu wanaagsan agaasimaha guud sidoo kale inta kalena waxa weeye sidaas ay u shaqeeyaan oo aan ku marag furayaa waxaan leeyahay idinkana si gaara hambalyo sanad wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu